Hab isticmaalka cusub ee dhaqashada geela ayaa hadda ka mid ah ganacsiga ka jira magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. geeli baan duulisanaa aan lusnaa waxa weeyaan hidii dhaqankii baan ku lusnaa geela dabir iyo daasad iyo caagad iyo xaynaan gelinayn ayaa lagu waalay ma garanaysa. Halkani waa xero lagu xanaaneeyo tiro geel ah oo irmaan, waxaana gacanta ku haya dhalinyaro ku xeel dheer dhaqista geela. laba jeer casar fiidkii markaa uu soo galo casarkii fiidkii soo galo iyo subaxii anagu raggii geela lahaa baan hore raggii geela soo ibsadeen laakiin ganacsanay ma garanaysa markaa raggan ka ganacsanaya say doonaan baa u dhagaa laakiin anagu geelana waa geeli aabbaanu ka soo gaarnay aabbana awoow ka soo gaaray waa abtirsaday ma garanaysa waa saasoo laba jeer baan lisnaa xaggaas u dareeraa burahaas soo daaqaya dhulka ayaga xerada magaceedana waxaa la yiraahdaa racing aan geel baa la yiraahdaa wadada 200 kaalinta cali waraabe ka soo horjeeda. maanta waxaan joognaa halkan xerigaalkan Maxamuud Nuur Jaamac ninka mas'uulka ka ah halkan weeyaan. Maxamuud walaal ku soo dhawow bal nooga waran xeradan geela. waa mahadsantahay walaal Sharmaarkow horta geelu anagu waa geeli aan dawliga baa lahaan jirnay ma garanaysa inuu aabba ka soo gaarnay aabbana uu ka soo gaaray inta markii laga yimaado waqtina hawdkan ku dhaqaynay waqtina uu fariisinay oo qaabkan imka arkaysa ayaan uga shaqeynay marka muddo dheer buu geelu hawdka iska geeli jiray oo aan halka hawdkan ku yar maalmaari jirno aan qaalimadu ka iibin jiray oo dadka kale la mid ahayn ma garanaysa marka imka muddo ilaa 9 sano ayaan geela fariisinay aan qaabkan u shaqeyn uga shaqeynay. maxay tahay farqiga u dhaxeeya habkii hore ee aad u dhaqi jirteen geela iyo habkan cusub hadda aad u dhaqdaan? dadka caano ka helay magaalada marka geeran 150 koob iyo 150 koob ayaa aroortii habeenkii laga qaadaa magaaladii wuxuu leeyahay dad baa iyagu dib uga ganacsanaya anagoo ka ganacsana faa'iido noo leeyahay gaar ahaan magaaladii markii tagaana dad baan ka iibinaa dadka ka sii iibiyo dadka caano ka helay freesha oo la isku soo dardarin oo maxaan ku dhahaa imika geela laga saaray imika waa kan wada arkaysa waa lisnaa waa la qaadaya magaaladii baa la geenaya bari subaxna marka caad soo baxday ilaa 7 ayaa laga qaadaa marka magaaladii caanada cusub buu keenay oo dadka isticmaalayo oo aan la isku soo dardarin oo fresh oo laga saaray lambar 2 wuxuu keenay dadku imika xoolaha uu siinayo xoolaha waa laga sii baxayay inuu dadkii dib u yara waa tabcado oo xoolihii ham gaar u yeesho ayuu faa'iideeda keenay qiimahoodii dib u soo noqdo ma garanaysa geeri dhalay dadkii aan sano kale uga shaqeynay in laga iibsado u baahan yahay qaalimadii in laga iibsaday ku talagelayaan faa'iido badan buu ayuu magaalada saameyn tel eg ay ku yeelatay geela noloshiisa. wallahi ma geeli isagu nasiimo ka helay isagu oo daaqii halkan uu dareer daaq buu ka soo helaa ma garanaysa waa lambar 1 caws baa loo soo gooyaa caleen baa loo beeray waxa la wixii uu socodka ku soo cunayay ayuu fadhiga ku cunayaa halkan imika ayagana isaga dareera markuu soo hoydana cawska loo daadinayo caleenta loo daadinayo isaga laftiisu nasiimo helay waxaan aaminsanahay inuu sida uu yaadeen hore uu yaaci jiray ma garanaysa inuu faatixada macaayiga u dareeyana aaminsanayba ya marka isaga wax dhibaato isagana ka soo gaadhay ma jirto marka anagu intii dadaalkeeyay waanu keenay laakiin waxaan ku codsanaynaa dawladda lafteedu inay xoolaha ay ku hayso isha ku hayso oo maxaan ku dhaxaa xanaanooyinka kale ay la shaqeeyaan xoolaha caafimaadkooda la ilaaliyo boqolkiiba boqolde imika anagu baa xiniyahayaga iyo kalsoonidaydii iyo ragnimadeedii oo keliya ku dhaqayna ma garanaysaa laakiin dawladduna waa inay garab istaag samaysaa xanaanooyinka geela la shaqeeyaan caafimaadkiisa la ogaadaa budgetka wax loogu daraa ya maadaama uu laf dhabarteenayay xanaanada xooluhu waa inay boqolkiiba 90 waa inay dadaal kordhisaa ya oo xoolaha ka warhaysaa geela ka warhaysaa annaguna si aanu dee u soo kordhina shaqada ya waa inuu garab istaag ka helnaa waa inuu beeraha qodanaa waa inuu halkaa wadanigeennii iyo maxaan kula xoolaha isla kaashanaa ya idinka laftiinu qayb weyn ka qaata arrin ahaan iyo aragti ahaanba.
mikrofon oo lagu dhiganayo وكاسو ودا خيسايو geeli baan duulisana aan lusnaa waxa weeyaan hadii dhaqankii baan ku lusnaa geeli dabir iyo daasad iyo caagad iyo xaynaan gelinin ayaa lagu waalay ma garanaysa ninka la leesay cawl Yusuf macallin baa la yiraahdaa waa rag geela ka shaqeeyay isaguna ma garanaysa marka arrimuhu waa saddex iyo irmaano wakaasoo waa lusnaayo waxa weeyaan xoolaheennii horta way ka kibirnay oo waxa weeyaan waxa lagu yaacayaa wax dal kale ma garanaysa waa dabeecigeennii wax yar baynu ka sii haynaa marka ها هاشن عانيه iyo noga waran inta bal ka listaa هاشن caanaheedu wax dhiirkaas imka toddoba qaada oo kaasoo doon ka buuxiyo wada kastaa gacantaada aan kula sii magarays marka toddoba koob dhiiqda ha dhaayin baa leedahay war ma garta halkii aan ma markii walba la galaba subaxina intaas laga listaa maalinta inta jeer laba jeer casar fiidkii marka uu soo galo casarkii oo fiidkii soo galo iyo subaxii أنا ورجع جيل الهابا إنه هو رجع رجع سويب سلمني لكن جنا سنة مقرنس مركز رجع كجنا سنة يا سيد ونام بودجا لكن إنه جيل أبانو كسوق جاني أبنا هو كسوق جاني وابتر سنة مقرنس مركز وصل صلبات شربان لسنا حق عصو دريرة بروح عصو صوت غير وكايجا وصل ويا هذا ما قاعد نروح على ريستين عن الجيل بلا ها وهرجيسك كل هذا شوفوا ورما قرت وضل الله بقول كانت على ورابك صور شيء markaas taa weeyaan anigu maxamuud nuur jaac ninka geela labana oo sida weeyaan ha fiidkiina waa naga helaan aroortiina waa naga helaan laba jeer waa naga helaan qofku iman kara halkan xirad geel dhexdeeda laga iibinayaa ha suuqana meelaan ku leen dhowr meelood baan kiibnaa meheremkii ha wakaasoo waa leef wada ku jirtaa oo macnaha eeg wixii dadka qaarna waa looga warramaa aduu laakiin leef ayaad ugu jirtaa imaka iyo aniguba ديك هو اسكو مد ما هو وادي درجة إمك هو يجي بين العبسة عفوا خطوات ما دوي انتظروا ليح بقى لقيها لي بقى ما كلا بلا عنها كبيرة هل ما دوم بكلم بالي
daawadayaal barnaamijkana intaas ayuu ku egyahay intaynu ku kulmayno barnaamijkan oo kale waa anigoo Sharmaarke Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo